xulka ciyaaraha gobolka Buuhoodle ayaa maanta soo gaaray caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa iyagoo ka qayb gali doona tartanka ciyaaraha gobolada oo ka furmi doona dhawaan magaalada Hargeysa waxaana duleedka magaalada Hargeysa kaga hortagay soo dhaweyntii ugu maqaamka sareysay wasiirka ciyaaraha Soomaaliland Cali Saciid Reegal wasiirka dib u dejinta Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca maamulka degmooyinka iyo gobolada Soomaaliland la taliyaha madaxweynaha arrimaha bariga iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan oo luleeyay calanka Soomaaliland waxaana soo dhaweynta ciyaartoyga gobolka Buuhoodle ka hadlay wasiirka ciyaaraha Cali Saciid Reegal iyo wasiirka dib u dejinta Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye iyo la taliyaha madaxweynaha arrimaha bariga Fuad Aadan Cadde waxaana soo dhaweyn kaliya laaba ku soo dhaweeyeen ciyaartoygii maanta soo gaaray magaalada Hargeysa farxad bay inoo tahay inaynu maanta halkan ku soo dhaweynayno ciyaartoygii reer Buuhoodle oo ka soo qayb galay ciyaaraha gobolada ee 2013 bisha June labadeeda ka dhacay halkan waana markii ugu horeysay ee ay yimaadaan runtii waxa weeyaan waxyaalahan waxay ka mid yihiin isdhexgalka dadka isdhexgalka bulshada is-afkaradka bulshada isdhexgalka isboortiga dadka waxa la doonayaa in laga saaro Soomaaliland sida u dhantay goboladooda dhan kala qoqobnaanta iyo dhalinyarada kala xiran iyo in dadku isdhexgalaba la doonayo waxaan horta marka hore soo dhaweynayaa oo aan leeyahay soo dhawaada ciyaartoyda gobolka Buuhoodle oo aan ku soo dhaweynayo caasimadda Soomaaliland sida wasiirku sheegay waa markii ugu horeysay gobolka Buuhoodle uu ka soo qayb galo ciyaaraha Soomaaliland runtiina shaqo badan iyo waqti badan baanu gelinay in arrintaasi dhacdo aniga wasiirkuba waa barnaamij isugu jira laba dhinaca ciyaaraha iyo dhinaca nabadda in nabaddii aanu bilownay la sii xoojiyo ayay arrintani laf dhabar u tahay sida wasiirku sheegay isdhexgalka dhalinyarada ciyaaruhu waa waxa dadku isku barto oo la isku dhexgalo 22 ciyaartoy iyo tababarahoodii iyo xogayihii gobolka yaa meesha maraya waxay u yimaadeen in ay taageeraan barnaamijkii nabadda aanu wadnay inay ka qayb qaataan ciyaaraha ka dhacaya bilaamaya 2 June caasimadda iyo in ay badiyaan oo waliba qaadaan koobka baan dhalinyarada u soo dhaweynaya waxaan rumaysan waayay ciyaartoygii Buuhoodle ayaa imanaya gobolka Buuhoodle waxaan ugu farxay si gaar ah ugu farxay waxaan u maleynayaa jaraa'idka iyo telefishinada inaad la socoteen aniga nabadda Buuhoodle wax gaar ah bay ahayd haddaan nabadi jirin dhalinyaroy horumar ma jiro waxba ma jiraan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad saaka Hargeysa joogtaan inaad arki doontaan dadku inuu isku mid yahay wax farqi inaanay u dhaxayn dhibaato inaanay jirin waxaad war celin doontaan inta yada Hargeysa joogtaa inaanu madaxnahay inaanu laandheeranahay inaan cid naga adkayn baad arki doontaan dhinaca kale waxa iyaguna ka hadlay mas'uuliyiintii horkacaysay ciyaartoyga gobolka Buuhoodle waxaana u mahadnaqay dhammaan mas'uuliyiintii maanta